السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيا أبشر حسن اشتفتم أنيقو أمن محمد عبدي جنال كان أبشر حسن اشتفتم كسو دواد ولا ليال من كان هو أبشر حسن runtii janalkan waxaan u sameynay waa organizationka abshir xasan ayaa ma aragtay ku lamaan waxaan isku dayayaa in insha allah familada haysta caruuraha maxaa la yidhahdaa disableka ah dal iyo dibadba in aan isgarab istaagno aanaan ma aragtay maxaa la dad badanoo waxaa jira ishtigmatiziyad ah ama ishtigma in la dhahaa umaleynaa ingiliishka oo ma aragtay markuu qofku haysto cunug disable ah ama cunug jiran in wax kale loo arko in maxaa la dhahaa laga dhigo qofkaasi in uu asagu ka mas'uul yahay ama dhibaato uu geystay ama maxaa la dhahaa in waxyaalo ma aragtay iska abaagalaw bay dhahaan halka kan dadku ay ka dhaadhacsan tahay ay aaminsan yihiin caruuro badan oo aan kusoo booqday wadankii markii aan tegay hooyooyin ma aragtaa ka sheeganaya dadkii kale in caruurtii lasoo dhagaxyeeyo in ma arkinoo loogu yeero caruurtii hooyadii ama familkii haystay cunuga jiran waxaasoo dhan waa hoosu dhig qofka ma aragtay damiirkiisa wax loogu dhimayo oo la rabo in maxaa la dhahaa dadka qaarkood xataa inay ma aragtay qariyaan caruurta oo aysan jeclayn in la ogaado inuu cunug jiran qofkaas haysta maadaama mala awaal uu iska jiro ah in cunug jiran u haysatid ama cunugaaga uu u jiraday dambi aa gashay ama habaar aa qabtid ama waxyaalo yacni aad ula yaabaysid teeda kale waxaa jira in haddii cunugaaga xataa aadan adiga yacni xag rabbi oo rabbaani ah waxyaalo waxaa iska jira rabbaani ah oo cunugii ma aragtaa imaanaysa uu ku dhalanayo laakiin caruuro badan waxaa la ogyahay wadamadan reer Yurub siiba wadankan Jarmalka aniga aan joogaan ka warqabaa in dhalashada wax ku gaaraan wiilkaygu wuxuu ka mid yahay caruuraha dhalashada ay wax ku gaareen waana wax iska maxal dhaha accident ah oo dhaca kadibna ay waalidkii faraha ka qaadaan oo isla hadii aniga wadankan qaxooti baan ku ahay oo anaa imid maxaan ka qaadi karaa taqaatiir iyo maaragtay isbitaal weyn miyaan u dacwoon karaa oo maaragtay waxba waa waxaad samayn kartid oo qofku uu xaqiisa raadsan karo intay rabtaba ha kula gaadho ama ku guulayso ama ku guul darayso laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad adiga muujisid mas'uuliyadda ilmahaaga kaa saaran aniga alxamdulilah 10 sanaan dacwo waday oon u dacwoonaya xaqa wiilkayga markii dambe alxamdulilah ilaahay waa igu guulaysiiyey waxaan u taaganahayna hadda waxay tahay inaan waalidka aan dhiirigelintaas aan u samayno iyo anigoo runtii caruuro kale oo asaga ka waaweyn 3 gabdhood ba asaga ka waaweyn abshir ka weyn maasha allah wadankaana kuna dhashay kuna barbaaray barbaarinta caruurta iyo qaabka maxaa wixii naga soo maray oo maaragtay khibrad ah iskuulada caruurtayda maxaa la dhahaa gymnasiumkay ka wada baxeen caqabadaha ka hor imaan kara muhiimadda iskuuladu ay leeyihiin iskuulada Jarmalku markii iskuulka primaryga markii laga soo tago way kala duwan yihiin hobta shuulaa jira real shuulaa jira gymnasium baa jira caruuraha mararka qaarkood ee jaamacadda markay aadaan oo kale waxyaalo badan baa jiraan rabnaa insha allah in aan idinkula qaybsano janalkan ood nagu soo boodgaraysaan si aan waalidka Soomaaliya joogana ayagana aan ma aragtay ugu noqono maxaa la dhahaa ugu noqono dee ku dayasho mudan noloshu ma aha keliya way jirtaa waqtiga aaminsanaa maalinba marxalad baad soo istaagtaa noloshaada maalinba hiigsi baa yeelataa inay muhiim tahay ina adiga kaliya intaa wax gaadhid ama adiga kaliya aad horumar samaysid aad hadhow ummadii kale la qaybsatid kaliya meesha quruxda badneeda aad tagtay halkaasaan trip ku tagay ama halkaasaan urloob ku sameeyay ama fasax u tagay maxaa la dharar noocaasaan xirtaa guri noocaasaan deganahay maanta anigu waxaan joogaa heer aan ka gudbay taas alxamdulilah oo aan aaminsanahay noloshu inay tahay inaad buddhig inaad wax dhagax dhigtid wadankeena kama jiro yacni isku duubnaan iyo dhagax dhigid ah in meelo xarumo loo sameeyo caruuraha ma aragtay ay teraabiyada ku sameeyaan ay maxaa la yiraahdaa waalidku ay ku nastaan oo caruurahaas looga haayo maxaa la yiraahdaa ay ma aragtaa waalidka laftirkooda
lagu dhiirageliyo lagu baro maxaa la dhahaa waxyaalo badan oo maarkino la soo gudboonaan kara qaabkay uga gudbi lahaayeen in caruurta walaalaha ah maxaa la dhahaa maaragtay sorry abshira halkan mama caruurta walaalaha la ah caruurta kale ayaga laftigooda dhiiragelin u baahan oo markii cunug jiran uu maxaa la dhahaa caruurtii famil ku soo saa'ido caruurtii kale oo walaalaha la ahayd dabcan attention badan ma helayaan wadamadan horumar baa laga gaaray dadka qaarkood xataa oo ajnabi ah oo maxaa la yiraahdaa Soomaalida ay ku jiraan ma yaqaanaan qaabka ay halka kan ay xiriiro ula sameyn lahaayeen dadkaas iyo qaabkay uga mid noqon lahaayeen meelo badan oo waxaa jira hooyooyinka caruuraha jiran haysta ay fasaxyo u tagi karaan cunugeeda jirana ay wadan karto waxaa jira mutakind kuwa wax la dhaho oo aad xaq u leedahay markaa hooyo tahay caruur yar haysatid waxaa jira hospice kinda hospice jira oo cunugaaga kurside faleega wax la yiraahdo adiga iyo cunugaaga iyo caruurta kale oo awadatid ba aad aadi kartaan waxyaalo badan baa jira marka insha Allah waxaan rabnaa inaan ku soo qaadano kan channel keenan marka waxaan rajeynayaa walaalo badan in ay maaragtay subscribe ka noo saaraan in ay maxal dhahaa thumbs up ka noo saaraan in ay noo share gareeyaan oo walaalaha kala gaarsiiyaan videoga inuu dheeraadaan diidaya walaalo sii daawada insha Allah dhamaadka videoga dabcan waa nala soo xiriiri kartaan khayr baan rajeynayaa walaalayaal muhiimadeydu ma aha in aan kushiinkeyga idin tuso ama qaabka aan maaragtay kushiinka u nadiifiyo muhiimadda aan runtii hadda aan meediyada actiifka uga noqdayna ma aha inaan lifestyle-kayga soo gudbiyo inkastoo muhiim tahay oo walaalo badan hadda ay idiin soo gudbiyaan waxaan u malaynayaa ayagaa nagu filan walaalo yaroo waxaa jira dabcan social mediada actiifka ah laakiin waa dad almost la yaqaano sidaa darteedna barnaamijyadooda mindhaa loo daawado haddaba maxay tahay sababta aan anigu hadda rabo inaan ugu soo biiro social mediada walaalayaal anigu waxaan ahay hooyo muddo aad u dheer wadankan Jarmalka ku nool 4 caruura ku korisay wiil maxaa la yiraahdaa caruurta special needska ah dhashay halkana ku korisa ama ku haysa waxaan aasaasnay organization caruurta special needska iyo caruurta oo dhanba muhiim u ah waxaan kale isku dayaynaa maadaama dad badan hadda ay wadankan Jarmalka almost 40,000 dad dhan ay ku nool yihiin caruurana haystaan caruur jirana caruurahaas ku jiraan in aan yacni kula wadaagno wixii khibradayada ah sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa in walaalaha nooga soo horeeyay social mediada haddana caanka ka ah siiba YouTube-ka iyo aaladaha kale naga caawiyaan in walaalaha kale ay codkayagu gaaraan ee ayaga ku xiran waayo ma aha waxaan ka doonayna anaga lacag walaa mujtamaca Soomaaliyeed baanan lacag ka rabin walaalaha kale ee social mediada ku jira laakiin waxaan rabnaa inay waxyaalo badan noogu fududaadaan wadanka gudihiisii iyo maxaa la yiraahdaa wadankan aan ku noolnahayba maadaama ay nagu adkaatay waxyaalo badan fadlan YouTube-kayaga ka daawada maxaa la yiraahdaa barnaamijka kan oo dhameystiran